وحلا آمنا لا لا وما أنت ماركتي ذاتكي آمنات بيتيني نول بوح الرادنية قد والبوق قليا العكس كله واحد عادي شيء يوروب كذا عادي وفنلان كذا عادي أو مساجد دت ولا ليه ناس سميين أو لو كنت كنجري أيا واحد أدقنا نمن قال أو قمار استيال أو مخايرة كله أو قمار لو قديرو نمن كي واحد يتجين قد مساجد كي واحد كي هذين والرمية واحد رمنا إن أنا نسيم نصدقه إن أنا العقد نسيم من نجاح بليس قد بقى كفرستي مساجد كانوا بشر إلا يهبين كي واجي وأوبري والله سمروا واي وأنا وحنو قاري إن حتى بقول مليون $. inay dadkan ka soo qaataan dhibaatada dhacday waxa weeye hadda ninka Soomaaliga ah in kaarba ku dhacdo soo adduunyo u raadinay oo ku aakhira seegay oo ku tuku ku seegay oo diintiiba ku seegay oo daacad noqo waa laga laayahay ilaa nafta nagu jirta waxa weeye hadayna been sheegin ma noolaan karto wax ma cuni karto wax ma quudan karto ilmaheedan wax ma sii karto taas nafta ka dhaadhacsan ilaahayna wuxuu ugu talagalay inaa run sheegto oo saadiq aan noqoto nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saadiqiisa oo ku daysan waa diidanahay ilaa naftana noo diidan nimankii waxa la sameeyay boqolkii kun waa la soo qaatay akoonto laguma shubin waxba masaajidka laguma dayactirin waxba laguma sameeyay waa la kala qaybsaday wixii guddiga meesha joogay wadaadadii guddiga isku sheegay baa masaajidkaas ku kala qaybsaday hadda nimankii gaalada waa ma yacrafuuna dahaarada dunya wahum aakhirata qaafilun gaal inta shaydaan intuu wax ku siiyo ayuu ku kashifayaa nimankii waxay u yiraahdeen waa u yimaadeen masaajidkii bay yimaadeen wax laga bedel male kaarbad laga bedel wax laga bedel male media soo wataan waa u wacdeen waxay yiraahdeen waxay weydiinay Soomaaliyeed boqolkii kuna aydan sinni saajidkiina saan u yaala kaarbadna kamida bedel waxaad ka bedeshay male aqoontadii aad ku subateenna baan u baahanaa iyo waxaad ku qabateen hadda wadaadkii Soomaaliyeed shaydaan baa ciibiyay inuu saas yiraahdo hoos hogto ayaa inkaartaas ku dhacday ilaa runta sheeg waa laga laayahay ilaa daacad noqo waa laga laayahay war diinta ay sheeganayso oo maarta quraanka ay xafisan tahay runta ka shaqaleeya wadaadadii iyo waxa dadka Soomaaliyeed waxa ku dhacday watlu alladina aataynahu kitaabu fansaqa minha wattaba'a shaydaanu wa kana min al-ghaawin illa quraankan iyo cilmigan waa la baran karaa laakiin ku dhaqankeeda adag wadaadu iyo ummadda Soomaaliyeed ku dhaqanka adag salaadan waa inaad barataa ku tukataa runta sheegtaa runta wayna anfacaysaa haddaan muslimiin nahay adduun iyo aakhira wayna anfacaysaa runta sheegana laga laayahay oo daacad ilaahay u noqda annaga isticlaan lahayn oo qalbigana isticlaan lahaa qabiilkana tuur lahayn wasaq baa qalbiga ka buuxday qurun war dadka Soomaaliyeed isku ururiya oo isku keena oo wadaado waxtasimu bihamdillahi jamii'an wala tafarraqu ummadaas dhibaataysan Soomaaliya joogto oo gaajada iyo roobkii ku habsatay inta maragtay wadaadadiina wada ganacsiga ah nin wadaad mid Soomaali joogo oo millionaires ah oo dadka wax siinaya male dadkaas waxa ku filan inta Soomaali joogto oo business ku leh oo xaaraanta lacag ku keenta ku filan laakiin lama rabo ilaa maragtay lacagtaad ka garanaysa bakhiilnimo nagu badatay xaasidnimo nagu badatay qiyaana nagu badatay ragbiya nagu batay marka waxaan leenahay ilaahay diinta nagu soo celiyo war ilaahay aan u soo wada noqon war ilaahay daacad aan u noqono war ilaahay aan jeclaano $120 milyan Canada laga dhiibana wax la geeyay male oo dadkaas la geeyay mashruuc weeye gaalada iyo ummad Soomaaliyeed ay wataan wax la siiyana male dadka yaan la maartay waxba la siiyay la dhihin dadkii wali istir waa baahan yihiin $120 milyan oo ku filan lahayd hadii la gaarsiin la laakiin hay'adahaas ayaa la siiyay oo Soomaali wax la siiyay male marka walaalayaal waxaan leenahay ilaahay baa u maqan dadkaas ilaahay baa dharjin kara oon kana ka qaadi kara ummadda Soomaaliyeed isku keeni kara wada aragteen badda waxa ilaahay awooduna tusay meesha maartay reer siibad dabka ka kacayo oo Russia iyo America iyo Greece iyo China iyo adduunka oo dhan isugu tagay Soomaaliya ka socota Djibouti waa ku deyn doontaa dabkaasi Afrika oo dhan buu qabanaya aakhir zamankii meeshaas ka dilaacday nin walba waxaad isku diyaarisaa inaad walaalka been ka sheegin oodan ma lacag waxaadan siin aadan dhig wala siiyay ama nin miskiin oo walaalka oo baahan aad magaciisa aadan ku qaraabin aadan hor istaagin wixii loo soo wada xataa la siin lahaa ilaahay ka baq Sheekh Baruud waa noo sheegay gabadha maartay hana la yiraahdo noo sheegtay in misawro bambaana aad ka qaadaan oo ilaa iyo 6 aad la sugtaan dadka baahan oo oonku hayo gaajado hayso إلهي كبقدة وإلهي كبقدة وهو إلهي كبقدة وردت كان مشروع كن نقولنا وردت كان مقعودها قرابنا وردت كان مساكين دباتين سن دبات تداس هو يستاجنا واحد نسين لا حتى هكور يستاجني سدا عضو أسية وإلهي كبقدة ورسومالي استعلاء ورهي سنعنا سنعيب وحو كان دينتو ترتراه عندنا دينتي وأنا جود ترترنتي واحد لنا قول يرجو يولال تنمو يسكو ماشو إلهي ونجع الله وأنا نقول إلهي جعلنا والسومالي من نقطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.